بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نوضي داوديال ميل والبو ad joogtaan kusoo dhawaada barnaamij gaar ah barnaamijka gaarka waxaan diirada ku saari doonaa haduu Allah haweenaha ogolaado tababar loo soo xiray ciidamada xoogga dalka Soomaaliya qaybta Jubbaland شعبك قديمي ربي هدي مكة آمين إذا كيدو الكيغو وغادا بغدغو يوريون دهد الواغو دبنا شعدوغي شعبك قديمي dhinacaaga joogo dib yaro ku gaadha isbana bardantaaliyo tahay dhabar jabkiiso dhiigga ku shubayaan ciidan yahow dhabtii ahay شعبك قريبي ربي هدي مكة آمين halkan waa xirada 43aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya muddo ka badan 2 sano ayay ciidamadu halkaasi ku qaadanayeen tababaro tirada ciidanka ayaa gaaraysa ilaa 1500 oo askari kuwaasi oo intay xirada ku jireen la siinayay casharo kala duwan madaxweynaha dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa tababarka soo xiray waxaana munaasabadii xiritaanka tababarka ka soo qayb galay wasiiru dawlaha wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cali Xagaa mas'uuliyiinta labada gole ee Jubbaland taliyayaasha ciidamada xoogga dalka qaybta fadhigooda oo yahay Jubbaland iyo saraakiil ka socda ciidamada AMISOM ciidamada oo muddo 2 sano ah halkaasi ku qaadanayay tababaro kala duwan ayaa madaxda hortooda waxay ku soo bandhigeen qaar ka mid ah xirfadihii ay barteen sida gaardiska iyo tababaro gaar ah oo ay madaxdu la dhacday
تكفك واكو واكو دمعي رساستيو بالبايدين قرن إلا دا علاديو تكفك واكو واكو taliyaha qaybta 43aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Generaal Ismaaciil Saxardiid oo ugu horeyn munaasabada ka hadlay ayaa waxa uu sharaxaad ka bixiyay ciidamada iyo waxyaabihii ay barteen warbixin kooban idin siiyo ciidankan oo ah dufcadii koowaad ee ciidanka isku dhafka Soomaaliyeed kuwii ugu horeeyay ee laga hirgeliyo dalka ciidankan oo taariikhdiisu tahay tiro kooban waxaa la aasaasay 11 bishii shanaad 2015 waxaana xareeyay guddigii isku dhafka ciidamada qaran ee wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka Soomaaliya iyagoo kaashanaya hogaamiye dhaqameedyada beelaha deegaanka iyo guddi heer maamul goboleed oo ah saraakiishii hore ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya taariikhdu markay ahayd 13 bishii 2015 wuxuu ciidanka soo degay aaga uu hadda degan yahay oo garoonka hore ee ciidamada cirka Madhamaato 25 bishii 7 2015 madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee xilligaas mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si rasmi ah u furay tababarkii ciidamada lugta ah oo ay bixinayeen ciidamada AMISOM ee Kenya si ciidanka loogu diyaariyo howlgallo cadowga ka dhan ah 22 bishii 8 2015 waxaa ciidanka oo fashan lala beegsaday qarax loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa kaasoo sababay dhimasho 24 iyo dhaawac 30 askari ah afkoodii bishii afraad 2016 mar labaad waxaa furmay wejigii labaad ee tababarka oo ay bixinaysay macallimiin AMISOM ee Ethiopia tababarkaas dardaaran maadaama aad tihiin askarta ciidan qaran waxaan idinkula dardaarmayaa in aad noqotaan wadaniyiin si u istaaga difaaca dalkooda diintooda iyo dadkooda waxaad kow ka tihiin dib u habeynta iyo taayeenta qorshaysan ee dib loogu dhisayo ciidamada qaranka Soomaaliyeed idinkoo nasiib u yeeshay inaad noqotaan dufcadii ugu horeysay ee ciidan isku dhaf Soomaaliyeed waxaa la idinka filayaa in aad tusaale wanaagsan u noqotaan ciidamada kale ee dhalan doona waxaa la idinka doonayaa inaad u adeegtaan oo aad difaacdaan isla markaana aad dhowrtaan xuquuqda shacabka Soomaaliyeed ee aad u dhaarateen oo aan lagu xadgudbin waxaad tihiin astaan muujinayo dib u dhiska ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya tababarna aad u qaadateen waa inaad ku difaacdaan qaranka Soomaaliyeed waana in waxaad barateen ugu shaqaysaan ummadda Soomaaliyeed dhammaan wafdiga madaxweynaha uu hogaaminayo iyo wafuudda kale marti sharafka kale waxaan u sheegayaa inay ciidankan maanta ay diyaar u yihiin inay waajibaadkooda qaran ee loo tababaray muddada dheer usoo tababarayeen inay gutaan waad aragtaan waa diyaarsan yihiin ayaga gaadiidkoodaba waxay u baahan yihiin inay howlgalaan oo dalka hawsha ka socota la dagaalanka argagixisada inay ka qayb qaataan waa diyaar iyaga iyo dhammaan inta soo diyaarsan waxay diyaar u yihiin inay howlgallada buuxa dalka ka qayb qaataan iyo madaxdoodaba waa soo dhawaada idinkana waa salaameyna calaykum asalaam maxamed cali xagaa wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka Soomaaliya oo munaasabada ka hadlay ayaa waxa uu ciidamada ku booriyay inay ka soo baxaan mas'uuliyadda ay bulshada u hayaan waxa uu sidoo kale ku amaanay sidii ay ugu dhabar adeegeen tababarka muddadii uu socday annaka iyo ciidanka iyo madaxweynaha dowladda Jubbaland waa isugnahay meeshan oo cidla oo geeda ku yaalin baa ka bilowna hawsha
maantana waxaa la gaadhay in tababar aqoon iyo xirfad aad cadowga kaga hortagtaan liibisiyo diyaarna u tihiin maanta inaad cadowga ka hortagtaan oo aad difaacdaan dalkiina. waxaan u mahad celinaynaa marka ugu horeysa haddaana wasaaradda gaashaandhigga madaxweyne axmed oo aan la-aantii aanay maanta ciidankaasi halkaa joogeen oo aana suuragaleen waanaad ogtihiin kala guuro fara badan iyo doorashooyin xildhibaano iyo tu wasiiro iyo tu madaxweyne ayaa waqti badan lagu jiray oo maamulku aada u kala daatay oo uu kala furfurtay. intaasna isaga ayaa gacanta ku hayay oo ka warhayay. waa uga mahad celinaynaa waajibkiisiina uu gutay. maanta waxa aan halkan u fadhinaa maanta waa maalin aan ka midho dhalanay halgankii iyo guushii aynu u soo marnay in aynu u diyaar garowno sidii aynu dalkeena u difaaci lahayn cadowga iskaga difaaci lahayn dalkan ugu xoreysanahay sida ay caalamku u nool yihiin amadaha ummada kale u nool yihiin aan u noolaan lahay. waxaan mahad gaar oo kale u celinaynaa ciidamada Kenya oo iyaguna markii hore naga gacan siiyey suurana geliyay in maanta bayskan ama xaruntan aan taagannahay aas-aaskeedii qayb weyn nagala qaatay. tababarkii ugu horreeyey ee xuquuqul insaankana siiyey ciidanka. maanta waa maalin weyn, waa maalin aan isku hambalaynayna dhammaanteen, waa maalin aynu u diyaar garoobayno sidii aynu cadowga kusoo duulay dhulkeenna aynu gacanta uga maroojin lahayn. maanta waxaynu isfaraynaa keliya waxa weeye amaamiir iyo amar. wixii inaga dhimanna ballanqaadkiisa annaga keenayna baahi ciidan ah si aad u gudataan waajibaadkiina. waxaan aada ugu faraxsanahay maanta in cadowgu indhihiisa ku arkayo in ay Soomaali ama ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanba ay diyaar u yihiin sidii ay dalkooda u difaaciyaan. waxaad idinku taariikhda ku gelaysaan waxaad tihiin ducaadii ugu horreysay ee isku dhaf ah ee dib loogu aasaasaya ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed. marka maanta waxaa idin soo xidhmay tababarkii. waxaa laga sugayaa sida aad dufcaddii koowaad u tihiinna inaad noqotaan dufcaddii koowaad ee gudata waajibaadka ay u dhaarteen ee dalka iyo dadkuba ka sugayaan. cadceeddu way kulushahay mar raba waqti badan inaan nagu sii raajiyo hadallo badanna ma odhan karo because waxa weeyaan waxaan waqti badan sugaynay inaan ka midho dhalana ayaa maanta inoo midho dhalay. waa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin, ilaahay baa mahadda iska leh. kolley maantana maalintaas hawlaheeda waxbaa jiri jiray, wixii jiri jirayna taliyaha iyo Ismaaciil ayaad kala xidhiidhi doontaana waa mahadsantii. inaguona isku dambayn doonaa haddii ilaha yidhaah. waa intaanan bixin si gaar aan isku arki doonaa ciidanka dhammaantii. Soomaaliya ha noolaato, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ha noolaado. diyaar soomatiin inaad cadowga waddanka ka saartaan. wasalaamu calaykum. dhamacyo rasaastiyo dhimbil baa idin qoran ilada colaadiyo takafaku waa kow waa kow. kolay waa dhibkiino idinka dhaawiciine haday dhalatay nabadii macika dambali hooy macika dambali. kolay waa dhibkiino idinka dhaawiciine haday dhalatay nabadii macika dambali hooy macika dambali. rumbaa soo dhawaato xaqiiba dhalaale dhagaar qaba ha muuqdo ma dhadhaabyadaad geli. rumbaa soo dhawaato xaqiiba dhalaale dhagaar qaba ha muuqdo ma dhadhaabyadaad geli. dadka kuwa dhameeyo dhigya cabdalaan cune idinka nabad ka dhaartee dhulgariir ma idinku dhacay. dadka
dhulgariir ma idinku dhacay dhulgariir ma idinku dhacay ugu dambeyn waxaa munaasabada soo xiray khudbada dhinacyo badan taabanaysana ka soo jeediyay madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa waxa uu sheegay inay tani guul tahay waxa uu intaas ku daray in Jubbaland ay noqotay dowlad goboleedkii ugu horeysay ee ay saldhig rasmi ah ku yeeshaan ciidamada xoogga dalka inta markaan ka soo gudbo waan u mahadcelinayaa guud ahaan dhalinyarada ka qalijabisay difcadan koowaad ee xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta 43 tababarayaashooda madaxda amisom madaxda kale saaxiibadeena ee bartooda noogu timid wasiir xagaa iyo jenaraal xaashi oo raggii aasaasay mas-uulkana ka ahaa guddidii ciidanka halkaan diyaarisay waxaan is leeyahay waa marxaladaynu soo maray oo maanta aan is leeyahay waa guul taariikhi ah waxaan filaynaa waxaa hadda noo dhiman waa ciidankaas oo la dhammaystiro oo waxa loo dhamaystiraya ay tahay sidii u hawlgeli lahaa sababtoo ciidankan looguma talagelin inay iyaga keligood dee la tababaro oy meeshaan fadhiistaan ay toondhooyinkan ku jiraan waxa loo tababaray waxay ahayd inay mathal ama tusaale u noqdaan soomaalida kale inay noqdaan aasaaskii xoogga dalka Soomaaliyeed oo qaybtii ugu horeysay ciidan isku dhafa oo intii beelo Soomaaliyeed loo qaybiyay lahaa beel waliba intaa ha keento oo la isku dhafay inay noqdaan ciidan maanta meel kasta oo Soomaaliya ka mid ah loo diri karayo Soomaali ka kooban waxaan isleeyahay waa guul taariikhi ah wax badanna taraysa haddaanu nahay reer Jubbaland iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta 43 waxaanu tabasho ka qabnaa anoo afkooda ku hadlaya dowladda federaalka iyo wasaaradda gaashaandhigga iyo wasiir xagaa nagala joogiyo taliya xaashi inaan isleenahay xuquuq badan baa idinkaga maqan warsoo sidaas maaha xuquuq badan baa ku maqan waxay ahayd mar hore in qalin jabintuna dhammaato ciidamaduna ay hawl galaan waxaan anagu wax badan ku ixtiraamayno oo lahayn aan sugno dowladda federaalka ciidankeeda inaan maanta Jubbaland anagu ciidan aasaasno oon baabuurkeeno oon ciidan hubayno ma aha mas-uuliyadna saaran ka istayd ahaan annaga boolis baa noo yaalla laakiin cidda laga sugayey difaaca waddanka iyo ilaalinta xuduudaha iyo waddanka inay wax ka qabtaan waa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed dowladda federaalkana waajibkaa iska leedahay waxaan doonaynaa wasiir xayaa waad joogtaa dowladdaadiina warbaad kala timaado kula noqonaysaa ciidankaa waqtiga ugu soo horeeya in loo dhammaystiro waxa ay u baahan yihiin ee cadowga ay kaga hortegayaan in loo dhammaystiro xuquuqda asaasiga ee uu leeyahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed hubaal waxaa maanta tirada aan sheeganayna ciidamada iyo tirada cadowgana hortaagan inay aada farqi ugu dhexeeyo waxaa hadda aada looga hadlayay 18 way yar tahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidan ka badan baa loo baahan yahay war 18 10 oo ciidan oo rasmi ah oo tayeysan oo jirtaan u baahna inaan number iska sheegno 50 baan haynaa saacadda howlgalkana la waayo xilliga kalena la yidhaha 50 60 baa joogta waa nasiib darro weyn malihin ciidan jiray ha la tuuro waxaan leenahay ha la helo ciidanka la sheegayo sida kuwaani maanta hortanada ay u fadhiyaan ciidan horteeda fadhiyo saaka howlgal haddii loo baahdo xataa inay galaan loo baahan yahay baan u baahannahay inay galaan taasaa muhiim waxaan rajaynaynaa mar haddii tababarka la xidhay ciidan cusub baa halkan lagu soo xarayn doonaa in ciidankaana laga bixin doono xerihii ciidamada ay lahaan jireen iyo qaabkii u howlgeli lahaa in laga shaqaynayo haddii dowladda federaalkii ay tiraahdo annagu hadda aada wax nooguma socdaan oo waayahan kanshooma hayno waxaan is leeyahay si un baan yeelaynaa ciidankana waan qalabeynaynaa waana diyaarinaynaa furintana waan wada aadaynaa insha allah tirtirsiyo badan iyo caraabin badan baanu ku gallay aada waxaan u rajaynayaa maanta ciidankaas difcada loo xidhay iyo tababarkaa la xidhay iyo sabirkaa badan ay sameeyeen iyadoo weliba magacyo badan magaalada looga bixiyeyo ciidan intii drays loo xidhay la sii daayey magacyahaan hadda sheegayna loo bixiyey waxaasoo dhan waa wax u baahan in laga gudbo oo ciidanku wejiguu lahaa u qaato waan garanaynaa shalay waxaan ahayn waan garanaynaa xoogga dalku wuxuu ahaa maanta cid waliba ha noo waxaysato
waxaan filayaa inaan isku filaan doono aada iyo aad waxaan uga rajaynayaa madaxweynaha dowladda federaalka iyo wasiirkiisa gaashaandhigga iyo ra-iisul wasaarihiisuba in dib loogu noqdo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo dhismihiisa. amisom ma joogayso weligeed, way idin tababareen, tababar fiican bay idin siiyeen, kuwo kalaa la tababarayaa, laakiin maynoo joogeen intaan doono. waxaad ogaataan iyagu caruur bay leeyihiin, reeray leeyihiin, inta ay kula joogi karaan waa muddo xadidan wey. ka kenyaankii kenya u aadaya, burundi buu aadaya, etoobiya aadaya, sierra leone bay aadaysaa, uganda aadaya, sababtoo nin walba waddankiisii baa u baahan, caruurtiisii baa u baahan. waxaan u baahannahay marka inaan si quman ugala wareegno, annagu aan gacanta ku qabanno waddankeena kooxa yaryar oo cisaaba ah oo shabaaba oo isu wareegaysa. waxaa nasiib darnaha maanta dowladda soomaaliyeed hawaday xukuntaa, shabaabkuna dhulka xukuma. soo wax nasiib darnaha ma, iyaguna dhulkay ku safraan, annana hawadaan ku safaraa. intaasa haddaan soomaalina ceeb noogu filan. war ma ciidan baan laana? soo waxaana ciidan maaha? sow intaasoo kaloo badani ma joogto? oo maxaa dhulka noo diiday? jawaabtaa wasiir xagaabaa laga rabaa inuu geeyo meel saaro. baydhawaan aadi cirkaan maraya, afgooyaan aado cirkaan maraya, afmadowgaan aadi cirkaan maro, baxasha waxaan aadayaa meelba meeshaa doonta dheh. shabaabna dhulkii ha mareen. waxaan u baahanay hawlada inaan galo. ciidanku ma laha eedda, annaga mas-uuliyiinta ama federal level ha noqoto ama dowlad goboleed ha noqoto, iyagaa iskale. amisomna eed ma laha, dhalinyarada ciidankana eed ma laha. eedda waxaa iskale mas-uuliyiinta soomaalida ah, ama heer xukuumad goboleed ha noqoto ama heer federaal ha noqoto. waxaan filayaa isbedel in la heli doono haddii la yidhaahdo. waxaan rabaa inaan idiin ballan qaado, haddii sida ugu dhaqsaha badan dowladda federaalka ay jawaab u bixin weydo oo ciidanka howlgal loogu diyaarin waayo, waan ka tashanayna. aad baad mahadsantihi. ciidankaygan dhiirana dantayda waxaalisiya dhimashada u badheedhe waa bashtada ka dhaarto. waxaad tahay dhismaha qaran, udub dhicid u diidiyo dhexda tirka xooje dastuurkeenna lagu dhigay. ciidankii dhulkaygo wadadhabadadago yuryur dahadhurwaago dhabanasha cadowgii shacabkaaga dhibaye. rabbi hadimaka amiin. ciidankaygan dhiirana dantayda waxaalisiyo dhimashada u badheedhe waa bashtada ka dhaarto. soo xiritaanka tababarka ciidamada ayaa kusoo beegmaya xili dowladda cusub iyo dowlad goboleedyada ay qorsheynayeen in dhowaan la dhiso ciidamada xooga dalka. daawadayaal waxaan intaasi kusoo afmeerayaa barnaamijkii gaarka ahaa. waxaa barnaamijka halkaan idinka soo saartay idinkalena socodsiinaysa anigoo saabiriin saal maxameda. dhanka kaamirada barnaamijka waxaa iga caawinaya cabdiqaadir jaamac gaboobe, dhanka farsamadana waa anigoo saabiriin saal maxameda. tan intaan barnaamijkani mid lamid aan ku kulmi doono daawadayaal waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. ciidankaygow dheheliyadan dhaxan ku karino una dhibin kulaykuye nabaddaadihiyo kaan dhagin kuladayno adaa dhagarta cadowgiyo gardaarada ka dhiidhiya. anna shacabku dhiirisho dhinacaaga joogo dhibyaro ku gaadha isma nabar dhantaaliyo tahay dhabajabkiiso dhiigga ku shubayaan ciidan yahow dhabtii ahay. ciidankii dhulkaygo wadadhabadadago
dhibay